هلا شرقرية هلا شرقرية. إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آله وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هلا شرقرية هلا شرقرية. سودو جمال. maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xoogaa yar ayaan jeclahay inaan arrin yar soo gudbiyo. hadduu ku dhaafo youtube-kayga tegi kartaa Ibrahim Shouriya TV 24. waxaan kusoo qaadanaynaa maanta khaladaadka ay sameeyeen dowladda Soomaaliya marka laga helay halka qof cudurka coronavirus oo loo yaqaano COVID-19. absolutely waxay sameeyeen khalad aada u weyn because sababto ay tahay Soomaalidu ma garanayaan dhinacyo badan. waxaad u yarmaraysaa inay jaahil ka yihiin sida diseaska loo kala qaado ama sida diseaska. horta hore khadar ayuu ninka la socday, diyaaradda khadar oo la socday. waxa ugu daran oo muhiimka inii sheegaya maanta waxa weeye ninkan diyaaradda khadar oo la socday keligiis baa waxaa laga dhigay salotid laga dhigay oo meel lagu xareeyay isbitaal. dadkii kalena magaalada lagu fasaxay. marka waxaa taas kaaga sii daran xataa raggii baylodada iyo hosteskii waxaa la geeyey meelaha khatarta ahaayoo imaanayaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirada iyo hoteelada ay tegayaan baa la geeyey. marka waa cajaa'ib. marka waxay noqonaysaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo dowladda inay hadda iska ilaaliyaan inay tagaan hoteelada waaweyn inay tagaan. sababtoy tahay waxa waaye coronavirus waa wax hawada la socdo waayo, waa wax dadka raaca waaye. korkaa uu raacaya wuxuu ku noolaan karaa intaasoo maalin ayuu ku noolaan karaa. laakiin maadaama ay dhul kulul ay tahay waxaa laga yaabaa saacado 8 saac 4 saac 48 hours 72 hours inuu ku noolaado korkaa uu ku noolaado. marka maadaama ay dhul kulul ay tahay, laakiin dhul qabow haddii ay tahay sida North America oo kale uu ku noolaan karaa 7 beri iyo wixii ka badan. okay, marka dib aan usoo noqono. waxaa dhacday markuu ninkan soo degay oo la fiiriyey xanuunkan horta hore sidiisaba 14 days ayuu dadku ku dilaacaa 14 beri. hadduu qofku caafimaad qaban waxaaba laga yaabaaba in uu ku dilaaco 14 plus 14 28 days inuu ku dilaaco hadduu caafimaadkiisu dhalinyaro yahay oo caafimaadkiisa. laakiin hadduu qof weyn yahay waxaa laga yaabaa oo xanuuno badanna uu jiro. soo dhow aamino. waxaa laga yaabaa inuu ku dilaaca laga yaabaa waqti dhow inuu ku dilaaco. marka depend waxay ku xiran tahay adiga caafimaadkaaga siduu uu yahay bay ku xiran tahay. okay, marka waxa waaye horta hore Soomaaliya haddii uu ku dhaco cudurka coronavirus oo ay qaadaan dadka hadda sida hadda horta hore maantu waa 16 bal dib baan u noqonaa isfiirino. okay, maxaa marka looga baahan yahay dadka qurbaha jooga? maxaa loo baahan yahay? beledweyne waa aragnay biya kusoo fatahmay. dhibaatooyin fara badan oo roobab badan baa dhacay. dhib baa kusoo saa'iday. laakiin cudurkan maaha biyo fatahmaayo waxaas maaha. marka dadka dibadda jooga maxaa looga baahnaan karaa? dadka gudaha jooga maxay uga baahnaan karaan? waxay uga baahnaan karaan inay lacag u aruuriyaan, inaanan dowlad wax ka sugin, inaanan dowladaha dariska aanan waxba ka sugin, inaanan dad gacmaha u horsanin, in shacabkeena Soomaaliyeed annaga dadkeena dibadda ku maqan aanu ku filnaano. nin walba hadduu $10 dhiibo oo qof kasta oo dibadda jooga $10 uu dhiibo oo akoon kusoo shubo lacag fiican ay noqonaysaa.
ilaa 2 milyan banaanka soomaaliya ka joogtaa. 2 milyankaas oo min $10 ah lacag aada u wanaagsan bay noqonaysaa. marka lacagtaas waxaa lagu qaban karaa in maaragtay dadkaas wixii daawo ah loo heli karo in loogu gado, loo dhiibo. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. senator maxamed cusmaan soo dhawow. runtii soomaaliya maanta ma u baahna hadal uma baahna, waxay u baahan tahay maxaad u qaban kartaa wadanka. marka sidaas darteed waxaan aada iyo aada ugu bogaadin lahaa adduunka qof kasta oo soomaaliya oo qurbaha jooga intaan dib iskugu noqono oo aan maaragtay isdiiwaan gelino. community waan wada leenahay, wadaadaanu leenahay, dad dhalinyaraan leenahay, sports baan leenahay. intaan iswada diiwaan gelino nin walba $10 inuu dhiibo, because never know Soomaaliya waxay noqon doonto. haddii hal qof laga helay iyo intii diyaaradda ku jirtay oo maanta magaalada gashay, waxaa laga yaabaa inay dad badan oo ku dhici doonto. marka hooyadaabaa ku jirta, aabbahabaa ku jira, walaalkaabaa ku jira, seedigaabaa ku jira, qof kasta ku jira. Soomaaliya maanta qof walba Soomaalida kulli waa walaalo way. xidid baan nahay, xigaal baan nahay, walaalaan nahay. Soomaalida meel kale dhumaysa ma laha. marka intaan dib iskugu noqono oon isjeclaano oo aanu wixii maaragtay xumaana aanu koow ka wada noqono baa ana ila haboon. maskaxda waa inaan ka shaqaysiinaa. maskaxda xalaasha ah ee quman waa in laga shaqaysiiyo waay. marka soo dhawow handandi walaal soo dhawow. marka aan ka shaqaysiino maskaxdeena, aan ka shaqaysiino intelligencekeena, aan ka shaqaysiino maaragtay awoodda ilaahayna siiyey, anagoona eegaynin qabiil, anagoonan eegaynin maaragtay cabdi soo dhawow walaal, anagoona eegaynin ninkan waa reer hebel. waxaas oo dhan xagga iska dhigno. hadda waxa yaalla waa coronavirus waay. coronavirus Africa markuu ku dhaco, dadkan it's not their business. nin walba wadankiisa dadka u maqan ayaa wax ka qabta. marka Soomaaliya intaan dib iskugu noqono, waxaan hadda waa one, laakiin tomorrow wuxuu noqon doona ma ogin. waxaan ka codsanaynaa oo kale dowladda Soomaaliya please in ay qaadka joojiso. qaadku waa shayga keliya ee coronavirus ugu soo dhooman karo shacabka Soomaaliyeed. maadaama ay diyaaradaha joojiyeen, waxaan ku bogaadinayaa madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka sare iyo baarlamaanka dhexaba hooseba in ay shir degdeg qabtaan oo ay ka joojiyaan wadanka qaadka soo galaya. qaadku waa waxa kaliya ee sun ah ee coronavirus wata. marka qaadka waa in lala dagaalamaa. ninkii lagu arka qaad waa in la xiraa. kaas waxaa weeye waa nin ugu talagalay shacabka Soomaaliyeed inuu dilo. dad badan ayaa waxaa jira ma garatay. waa runtaa walaal, ilaahuna badbaadi dhammaanteen. marka waxaa ila haboon aniga intaan dib iskugu noqono oon isfiirino in aan isku meel kaga soo wada jeesano. isku meel inaan xanuunka kaga soo wada jeesano. inaan u duceyno dadkii hadda xanuunsan, intaan xanuunsanayna inaan ka gaarno. marka dib aan iskugu noqono. nin walba oo jooga qurbaha, Ingiriiska, Mareykanka, Canada, anywhere in the world, qof kasta oo qurbaha jooga ma waayin $10. dad baa $10 waxa weeye waxba lama ah. $10 waxaa laga yaabaa qoys dhan inay badbaadiso. waxaa laga yaabaa shakhsi ilaahay baa hortooda dadka badbaadin kara, laakiin ilaahay dadaal buu ku yiri. $10 waxaa laga yaabaa qof inuu caafimaadkiisa uu wanaag ku noqdo. marka waxba kuma taraysa lacagtaas. marka waxaan ka codsanayaa communitiyada Soomaaliyeed inay la xiriiraan dadkooda magaalada degan. dadku wax ma diidana, laakiin waxay laayihiin waxay u dhiibaan laayihiin. waxay laayihiin qofay aaminaan laayihiin. waxay laayihiin qof dadka gaarsiinaya laayihiin. waxaa nagula jira hadda senatarka nagula jira, ilaahay ha iska daayo, senator maxamed cusmaan faarax ayaan damiinan karnaa oon dhigi karnaa
waxaan ku haynaa 300,000 half a million $1 million $2 million bilisxaanag wadanka noo geey dadka gacanta ka saar qof walba oo xanuunsan ha lagu daaweeyo waa ninaan aamini karno waa ninaanu maaragtay aan senator noo ah oo annagu aanu soo dooranay wey marka waxay ila tahay iyo dad badan oo la mid ah baa ku jira qolka marka soomaaliya waxay u baahan tahay in la caawiyo inaan annaga caawino maaha inaan gacan wax ka sugno marka soomaalida waxaan ka codsanayaa dhammaantiin adduunka meel kasoo joogo warnimo yahow waa inaad dad iska soo saartaan waa inaad dad lacag aad u dhiibi kartaan uu jiro waa in tirakoob la sameeyaa gobol kasta state kasta tuulo kasta meel kasta soomaalida joogto waa inaan ogaanaa xataa ma aha in wax laistara keliya maaha dad badan oo waxaa jira dhibaataysan ama tuulo jooga ama meel yar jooga oo xaasi carur ku leh oo ninkaas qofkaas la bahdilay la baabi'iyey wadanka inuu ku cusub yahay laga yaabaa laakiin markuu ogaado inuu community leeyahay registraysan yahay qofku kusoo cabado heli karaa ma aha keliya in adiga aad wax qabanayso adiga naftigaaga qurbaha jooga wax lagu qabanayaa marka waxaan dhihi lahaa dad yahow hal gacanaan noqono aanu is ixtiraamno aanu is sharafno aanu wax wada qaybsanno aanu ka dadaalno dhibaatada dadkeena kusoo socoto dhibaatada coronavirus wax yar maaha qofka u malaynaya inuu wax yar yahay wax yar maaha bilisxaana gacmaha iska dhaqa gacmaha 24/7 iska dhaqa haddaad tahay qof horta hore weysaysta 5 waqti weysaysta ku dar inaad gacmaha iska sii dhaqdo mar alla markaad musqusha gashto gacmaha iska dhaq guriga markaad soo gasho gacmaha iska dhaq markaad baxayso gacmaha iska dhaq haddaad awoodi karto oodan shaqaynin niyahu gurigaaga joog gurigaaga ha ka bixin in aad wax soo gadanayso hore kaga soo noqona sameeye bahalkan hawadu la socdaa gurigaaga ha ka bixin gurigaaga ku jir dharkaaga dhaqo noloshaada ilaali life is the beautiful noloshu waxay fiican tahay inta aad ku raaxaysan karto waxaa weeye inta aad alla baryayso aadna islaalinaysid intaas baad noloshaada ku raaxaysan kartaa laakiin nimaan alla baryin nafs kuma raaxaysan karaba nimaan salaad tukanin naf kuma raaxaysan karo nimaan ilaahay baryin naf kuma raaxaysan karo nimaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku dayanin naf kuma raaxaysan karo marka nafta aan ku raaxaysano nafta in lagu raaxaysto weeye ilaahay waxaan ka baryayaa ummadda soomaaliyeed cudurkan inuu ka badbaadiyo annagoo dhan inuu naga badbaadiyo intii muslimiina iyo ummadda adduunka ku nooloo ilaahay cudurka inuu ka badbaadiyo because waxaa laga yaabaa gaalada xataa in loo duceeyo weye sababtay tahay way soo muslimi karaan waa bini aadan weeye waxaa laga yaabaa korkiisu inuu ku jiro wiil muslina inuu ku jiro ninka gaalka ah marka asaga naftigiisa xataa duco u baahan yahay qofka bini aadanka oo dhan duco u baahan yahay in loo duceeyo marka aad baan inii salaamayaa haddii ninkii ahaa ninkii actarka ee madowga ahaa ee gabadha soomaalida qabay ninkaas wuxuu maanta soo duugay jirad uu leeyahay waa laiga helay cudurkii xaaskiisana way la joogtaa gabadhana u duceyno asagana u duceyno caafimaad ilaahay inuu siiyo annagoo dhanna caafimaad ilaahay inuuna siiyo cudurkan cudur yar maaha cudur waxaa weeye dilaa ah weeye ilaa hadda lama garanayo siduu dadka u dilaayo ilaa hadda xataa lama fahansana prime ministerkeena wuu ku dhacay asagana u duceyno asagii xaaskiisa iyo ilmihiisa iyo intii qabto oo idil inaan u duceyna ayaa waajib muqadas ah wadankan waanu lagu soo dhaweeyey waanu ku dhaqanay ilmaanu ku dhalnay sharaf iyo karaamaanu ku leenahay waxaa wanaagsan jisaakallah saaxib waxaa wanaagsan inaan dadka dhan u duceyno annagana ducaysano niman yahow salaad subaxa loo kaco salaada subaxi ciyaar maaha ilaahay wuxuu yiri wajacala leyla libaasan wajacala nahaara macaashan cishahaaga markaad tukato haddaad xaas qabtana xaaskaaga hoosta ka gal haddaad xaas qabinna raadso gabar fiican ma weynaysid gabdhihii waa buuxaan wax guursaday laayihiin ama singal maadan ha noqoto ama garoob ha noqoto ama gabar ha noqote wax guursaday laayihiin gabdhaha shukaansada xaaskiina hoosta ka gala raalli u noqda niman yahow waxaan inuu odhan lahaa dhammaantiin idin waanin lahaa salaadaada cisho markaad tukatan yahow iska seexo waxbana bannaan hawa urdin bannaan wax kaa jira ma laha tiim haartankan iska dhaafa ninkii kafay raba kafeygiisa soo gato raashinkiinana soo wada gata waad aragteen wadankan wuxuu noqon doona ilaahay baa og nin walba hadduu awoodi karo raashinkiisa soo gato gurigiisa wax kasta uu yaalo sokorta ha soo badiyo saliidda ha soo badiyo because mar waxaa laga yaabaa in la dhaho 3 beri guriga lagaaga bixi karo maxaa samaynaysaa marka ma dadka dariska waxaa leedahay cuntiisii
qofku siinaya male meeshan soomaali maaha ma joogtid dhul qurbaa joogtaa dhul qurba dhudhubba ku joog baa layidhi marka nimayo waxaaga soo gado haddaad awoodi kartid haddaad awoodi karinna xaq waxaad u leedahay ummadda soomaaliyed kula deg agteeda degan inaad dhahdo waxbaan u baahanay intaasoo carruuraan leeyahay raashin ha laysoo gado waa laguu soo gadayaa qofkaa haqirnaaya mala soomaalidu waa inay iskacan qabataa waa inaan iskacan qabanaa qofkeenna xun annagu ayuu naga xun yahay gaalkama xuma qofkeenna wanaagsanna anagu noo fiican yahay gaal wax ka gale male waa inaan iskacan qabanaa qofkeenna xunna aanu anagu asturanaa qofkeenna wanaagsanaana aanu asturanaa labadu waa inaan asturanaa qofka wanaagsan xataa waa lagaa dilay haddaad hore keento dhahdo ninkaa waa nin wanaagsan asagana asturo kuwa kalena asturo ma garate marka soomaaliyey dib ha laiskugu noqdo ha lala sheekaysto soomaaliya ha la waco ha la ogaado soomaaliya waxay maanta ku sugan tahay inta qofee laga helay macnaha laga yaabaa dad kale in laga helay oona weli aana ogeyn laakiin anigu mar kasta wararka waa laisoo gaarsiiyaa 24 hours kasta waxa soomaaliya ka dhaca waa layla soo socodsiiyaa 24 hours kasta weliba rag u dhow madaxweynaha iyo prime ministerka iyo dowladda u dhow ayaa ila soo socodsiiya iyo rag ajaanib ah oo soomaaliya degan oo kuwa xalana degan ayaa ila soo socodsiiya update bay soo siiyaan every 24 hours marka ilaahay waxaan ka baryayaa caafimaad iyo barwaaqi iyo baraare ilaahay inuu maaragtay awaale soo dhawow excellency ilaahay maaragtay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu caafimaadna siiyo dhammaanteen ilaahay inuu ka dhowro intii xumaana ilaahay ummadda soomaaliyeed inuu ka dhowro iyo dadka aanu dariska nahay markasta waa la ducaystaa ilaahay waxaa laga baryaa keliya ilaahay lama baryo ilaahay ummadoo dhanba markaad tukataba ummadda dhan baa loo duceeyaa inta xanuunsan inta dhibaataysan wax kasta waa loo duceeyaa ilaahay waxaa waaye qofkii lagu jiro ilaahay baa og annaga ma ogin marka ducadeyda inay adi kuu fiican taha laga yaabaa taaduna inay ani i fiican taha laga yaabaa marka aan isku wada duceyno qofkuu dhaafay facebookgayga wuxuu tegi karaa youtube-kayga Ibrahim Shuuriye TV aad iyo aad baa ku salaam walaalay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Ibrahim Shuuriye TV 24 halkaas tegi kartaa insha Allah halkaas wax kasta ka helaysaa salaam haddii ku dhaaftay Facebook haddii ku dhaafay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bye bye